بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا مقال عصب هديات نقع عصب تاي فضلا سورو هديات هرنا رجوكتين وحان كليهاي مركلة إيه مقال عصب runtii in badan waa idinka maqnaa oo ku dhawaad hadda 10 dambe ramadaanka ilaa 5 kale adiga 15 maalin waa maqnaa oo youtube-ka maanan soo gelin wax muuqaal ah sabab la xiriira inaan mashquul shaqo ku mashquulsanahay weliba safar aan galay marka hadda waxaan idin leeyahay dib ayaan usoo noqday oo waxaan rabaa inaan idinka waqti idin geliyo sidaa darteed sida aan waqti idin geliyay anina waxaan rabaa in idinkana follow the like share-ka commentiga follow macnaha waxaa waaye subscribe ka wadaa mid kale haddii aad arday cusub tahay waxaan kaa rabaa inaad muuqaaladana hore dib ugu soo akhrisato oo aad usoo dhegeysato qalin buug qaado note samayso casharada hore dib u raaco kadib waxaan ku leeyahay in la sooco haddii aad hadda la socotin waxaan ku leeyahay mar kale soo dhawow haddii codkayga uu hoos jiro waxaan idinka codsanayaa xogaa cudurdaara in xogaa aan cajisanahay mise xogaa hurdo iyo hayso daal marka mana idinka seexan karo oo aan muuqaal soo dhigin ma rabo inaan maalin ama hal maalin ama laba maalin ay moodo inta soo dhaaftay waxaa idinka raaligelinayaa inta hadda ka dambaysan insha allah asbuucii 5 muuqaal ilaa 10 muuqaal waa rajaynayna haddii 10 aan gaarsiin karno well and good waa haddii idinka ay tustaan in ay jeceshiin oo macnaha muuqaalada aad xiisaysaan okay muuqaalkeena maanta anigoo ku daahaynin waxaan rabaa inaan dul tago barnaamij noo socday oo ahaa sidee loo dhahaa sheegani haddii uu ka duwan yahay kan su'aal haddii hadda waxaan rabaa inaan how to give how sidee or qaab noocee to give aad u siinaysaa bad news in English bad news macnaha waxaa waaye war xanuun badan mise war naxdin leh mise war xun in English macnaha English ahaan wax war xun waaye warka xun sidee loo sheegaa sida dadka loogu dhaadhicinaa sababtoo ah ma dhihi kartid waxaan wax xun waaye wani war waxaan soo maqlay ma dhihaysid war waxaan dhahaysaa bad news aa jira ma dhihaysid laakiin another way oo dadka aysan macnaha si sarbeeb ah oo dadka loo dhahaa ayaa jirto English ahaan okay kan koowaad please fadlan please waxaa waaye fadlan do not or don't waa la soo gaabiyey do not take ha u qaadanin fadlan ha u qaadanin this kani ama shaygani badly si xun ama wax xun but balse mana qofkan si toos ah kugu sheego in wax xun jiraan ama war xun uu soo baxay laakiin wuxuu rabaa si farsamaysan inuu kugu sheego wuxuu ku yiri marka please fadlan don't take ha u qaadanin this kani ama shaygani ama warkani badly si xun ama wax xun but mana wax xun waaye laakiin wax xun ha u qaadan si macnaha qofkan uusan u nixin si farsamaysan loogu sheego okay mid kale it is my unfortunate tani waa nasiib daradeyda it's my unfortunate macnaha waa nasiib daradeyda mise waa nasiib daradii macnaha nasiib daradeyda duufti macnaha nasiib dare xil macnaha xilkani mid nasiib daro waaye to tell you macnaha waa qofkani qof oo macnaha wuxuu ku leeyahay warkan aan kuu sheegi rabo waa nasiib daro to tell you inaan kuu sheego that shaygani macnaha wax buu kuu sheegi rabaa marka inuu dhammaystiro maahan laakiin muhiimadda waxay tahay sidee loogu bilaabo qofkani in markaa war xun u sheegi rabto okay midda kale I am afraid waan ka cabsanayaa I am aniga afraid waan ka baqayaa I have got waxaan hayaa some bad news war naxdin leh okay intaas waa isla fahmanaa umaleynaa okay midda kale I aniga regret waan ka macnaha waan ka shalaynayaa mise waan ka xumahay to inform inaan ku wargeliyo mise aan kuu sheego that to inform you adiga that waa inaan kuu sheego waan ka xumahay sababtoo ah mise that waxa waaye waayo tusaale waxaa waaye waxaan rabaa inaan waxaan kuu sheego balse waxaan rabaa inaan waxaan ka xumahay mise waan ka shalaynayaa inaan waxaani kuu sheego balse waa inaan kuu sheegaa marka okay I am afraid okay waan ka baqanayaa mise waan ka cabsanayaa to inform you of in aan kuu sheega waxaani oo ah inform you that or inform you of macnaha waxaa waaye waan ka baqanayaa in aan kula wadaago arrintani okay waayo waxa macnaha laga baqanayaa waxay tahay war xun waaye warkani marka si toos ah laguguma sheego laakiin si farsamaysan ayaa lagugu sheegayaa okay there is no easy way there is ma jirto macnaha there is no easy ma jirto wadda fudud easy way waxaa waaye ma jirto wadda fudud to say this oo aan ku sheegi karo arrintani
balse okay I am sorry waan ka xumahay to have mana inaan to have to tell you mana I am sorry to have to tell you waan ka xumahay in aan kuu sheego arrinkani this but laakiin waan kula wadaagayaa okay I have got waxaan hayaa some bad news waxaan hayaa war naxdin leh mise war xun I am afraid waan ka baqanayaa anaa ma kula wadaagi kara waan ka baqanayaa waayo war xun ayaan sidaa okay I am afraid waan ka cabsanayaa I have got waxaan hayaa haddana something shay that is sad oo ah mid cabsi leh to tell you oo aan kuu sheegi rabo marka warkaan aan kuu sheegi rabo waa mid aan ka cabsanaya inaan kuu sheego I feel really bad macnaha waxaan dareemayaa cabsi macnaha waxaan dareemayaa cabsi maaha sorry I feel really bad waxaan dareemayaa xumaan mise macnaha culays mise cabsi very bad having to tell you waayo waxaan rabaa inaan kuu sheego this arrinkani balse ma kuu sheegi kari balse macnaha warka waa sii socdaa sheekada laakiin inta ugu muhiimsan waxay tahay qaab oo noocee aad ku bilaabi lahayd inaad war naxdin leh qof aa u sheegtid okay I don't know ma kasay amase ma aqaani how to announce sidii aan ugu dhawaaqi lahaa this kani but laakiin okay intaas isla fahmayna I don't know ma aqaani how to announce sidii aan ugu dhawaaqi lahaa mise aan u sheegi lahaa this kani balse but okay I am afraid waan ka cabsanayaa sorry I am afraid waan ka cabsanayaa I aniga won't be able ma awoodo inaan kuu sheego won't be able ma awoodo inaan kuu sheego oo kale ama inaan kula wadaago oo kale okay I am afraid so okay waa igartaa we are afraid anaga waan ka cabsanaynaa because we anaga won't be able ma u sheegi karno macnaha ma awoodno to inaan kuu sheegno macnaha I iyo we waxuu isticmaalayaa singular iyo plural I waa singular markii aniga ah wayna waa anaga okay haddii aad meel walba ku aragtid erey English aad aragtid oo ku qoran tahay unfortunately waxay la macno tahay nasiib dare macnaha nasiib xume ama nasiib dare so waxaad dhahaysaa nasiib dare okay qofkaas wuxuu dareemayaa nasiib dare markaad dhahdid in wax xun aad macnaha aad sheegi rabto okay I tried waan isku dayay okay but ma awoodo but ana balse I don't want to say okay عمل kartaa I tried waan isku dayay but balse I don't want to say ma rabo inaan kuu sheego oo kale sax ma dhihi kartaa okay I need waxaan rabaa to aniga macnaha I need aniga I need to warn you waxaan rabaa inaan kaaga digo I need to warn you waxaan rabaa inaan kaaga digo warn waxa waay digitaan to warn you adiga that kani I had macnaha that I have waxa macnaha aan hayaa some bad news macnaha waxaan kaaga digayaa macnaha anigaa rabo waxaan u baahanahay inaan kaaga digo because waxaan kaaga digayaa waxay tahay waxaan hayaa war naxdin leh tusaale qof baa warka keeni rabtaa inaad wax u sheegtaa rabtaa tusaale qof waxaa rabtaa inaad qodqodid oo wax kasoo saartid wuxuu ku leeyahay fadlan waxaan kaaga digayaa inaadan qodqodin sababtoo ah waxaan hayaa war naxdin leh okay intaas waxaa waaye cashirkeena maanta ku ma rabo inuu soo dheeraado intaas waxaan rabaa inaad ku celceliso aad fahantid sababtoo ah aniga idinka waxaa waaye waxaas la barneynaa qof dhaama ma jirto marka waxaa idin leeyahay intaa mid lamid ah kulmi doono waxaa idinkaga tagaya sidaasi nabadgelyo haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro fadlan la wadaag asxaabtaada like share iyo commentiga waxaad inooga soo qortaa haddii waxaan qaladnay haddii aad xoogan u dhantid waxaad noo soo qori kartaa waxaad dhihi kartaa meeshaas ustaad ma fahmin iga sax haddii aad anaa wax su-aala qabtidna nambarkayga wuxuu ku jiraa descriptionka mise aboutka videoga aan soo dhigi doonaa aad iyo aad mahadsantiin